السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalihey Soomaaliyeed aniga waay Mari Cabdulle Ismaan waxa idinku codsadaa wax gargaar ah idinka rabaa ilmaha yaryar ay u xariiraan qof xanuunsan ah maalin Ilaahay keenay isbitaal la wada isbuuc 3 mar la dhaqaa wax kaada ruux bani'aadanka adiga ku nool yahay kaada dhan ma haysto kaada jirkii ay galo haysaa waa barbaraa waa iska xanuunsan walaalihey Soomaaliyeed saacida idinka rabaa dal iyo dibad meel ay joogtiin ilaahay caafimaad Allah ay keenay ii soo duceeyo haddana wili gacantiin yaa ku jira wax aasna ma jirto wixii isbuuc walba si loo dhaqaa wixii isdhiman wax yar wax beena ka haya hadda dibadda moomaan dalka wax laga qaban karaa leedahay waxa ii qaw kartiin iyo qabto walaalihey waa idin bariya gacantiin yaa ku jira ii qaw kartiin iyo qabto walaalihey muslimiin dal iyo dibad wixii jirtiin ii soo gurmeed ilaahay idin gargaara idinka rabaa idinka gacantiin ku jira waxaana igu hariyo unugiigu yar waa kale sanadii baro jira ilaahay igu madaxbay dadkii waa dadreer baadi waxba haysan ninkii waxa ma jirto waxa isku baxteen ma haysto baxteen si baxteen ilkeed kaan yagro walaalihey muslimiin ii gargaara wixii gacantiin ku jirtiin ilaahay idinka rabaa ilaahay wax gacantiin Allah ii soo galiyo ninkii wax haysan wax Allah siiyo isoo daayo meel ay meesha joogtiin dawladda intay meel ninkii wax haysto waxa ay ku taro ay dan adduunyo waa ii jeedin walaashiin Soomaaliyeed ah ii gargaara alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaah baa mahad iska leh ilaahay mahad u sugnaatay alxamdulillaah gabadhan xaaskayga waa xanuunsan tahay kiliyaha laga hayaa kiliyaheedan waxay ka bilowdeen uur 6 bilood ayada ay lahayd inta koorna waa ka maqasheen marka uurkaas 6daas bilood macnaa kala misaa ku dhufatay dhiikarkii kiliyaha ku dhuftay sidii isbitaalka ay ku tagtay meel walba markii la geeyay gabadhii alxamdulillaah waxa ku soo aruur xaabo cabdiya hadda macnaa kiliyaalka loogu dhaqaay ayadoo saas kiliyaha loogu dhaqaay ataa gabadhii waa iska xanuunsanay malaria ku dhacayso waa jareynaysaa dhiiga lagu shubaa shalay hadda shalidan dhiig lagu soo shubay mar walba dhiiga lagu shubaa dhiigiya go'ay waa lagu shubaa dhiiga go'ay waa lagu shubaa takhtarku wuxuu dhahay gabadhan marka ugu dambeey kiilaha loo raadiyo sida ugu dhaqsiyaa badan kiilaha loogu raadiyo gabadhan kiilaha loogu bedelo Turkiga ha loo geeyo hala geeyaa ilaahay marka lacagtii qaali noqotay lacagtii 25,000 Allah oo kiilaha lagu bedelayo anagana lacagtii iidan ku dhaqayni 3 asbuuci 3 mar la dhaqaa 3 mar la dhaqaayo halkii mar $40 waa $120 waa $120 aniga ma awoodo ya $120 صبر $120 bishii meeqay noqonay asbuuci $120 hadii loo bishii waa $500 waa $500 bil anima isoo gasho meelaan ka keenaya male ilmahaaniiti waxay rabaan guriyay rabaan waxaan ku codsanaa dadweynaha sharafta leh oo walaalahey muslimiinta oo musaacidiinta dadka khayrka jecel علماء الدين شعب كصوماليات إندر قردك إلى ديكوري دولة أنت هذه كله كل واحد قاعد صناع قبلنا أن يتحاسكي و ما لهم أو تجنا ملء إنه إلهي عافمات وكان عافمات كان إله وطو وحي كلن دذال واي عافمات إله وط إله وحول بن أود ولا إله أودي سكامل واي إذا هذا سان أو كديك كرا كليا شيء أو في عناه كرا أود سولي إلهي الحمد لله رب العالمين لبكن إله وكان إله أنا كخالق كرا إذن كانوا عايزين كعسنا هنا قبلنا نيتي أو سو ساعدين إن شاء الله تعالى وحاسين ومعنا حد وين هالقف وإلهي خير سي وإلهي أول حريستي
bixi kara hal qafaa bixi karo oo ilaahay khayr siiyey oo ilaahay u naxariistay oo ilaahay hantidiisa ilaahay u barakeeyey waxaan ka codsanayaa dadka khayrka jecel waa dad badanaa jiro oo ahlul khayr ah waxaa ka mid ah hormuud oo ahlul khayr ah oo ummaddu macnaa saacido waa lee sheegay macnaa hormuud foundation aa lee dhahay tag meel aan u maro aan waaye waa dad aan weyddiiyo ama dad aan u tagaan waaye hadda meediyaha macnaa jaaniskaa aniga aan heli fursaddan aniga aan ka heli meediyaha aan kaga codsanaa macnaa inay isaacidaan oo gabadhan ii saacidaan turkiga aa loo wadaa leh fiisooyinkeedii iyo waxeeda dhanba inay isaacidaan insha allahu tacaala taasaa idinka codsanaa culamaa u diinka dadweynaha ilaahay dukuuruye dhallinyarada sharafta leh waxaan ka codsanaa inay macnaa ii saacidaan ii kaalmeeyaan insha allahu tacaala ilaahay idinkiisa ayadana ilaahay cudurka ka qaado bismillaah waxaan ahay deriska gabadhan xanuunsan gabadhan waa gabar xanuunsan oo deriskayga ah ilaaha cudurkan u keenay keliyahay ka xanuunsan tahay dhowr bilood ka hore gabadhan u xanuunsatay keliyaha iyadoo xaamilo ah uur 6 bilood laha wax ku soo booda dhiikar keliyuhu ku dhuftay cunugi waa lagu qalay dhib badan iyo rafaad badan iyo saxriiray soo martay wuxuu ilaahay u xugmay waaye maaragtay gabadhii alcamuum keliya eber noqday cunugi markii lagu qalay yaa muslin ahay yaa wareey aan galnay ilaaha ummad u bixiyey alxamdulillaah soomaalida maaragtay aad isugu damqataa dad walaalaheenoo magaca soomaalinimo aan wadaagnaa gabadhii u soo damqaday gabadhii ilaa hadda keliyaha laga dhaqaa maanta daruufta isku keentay waxay tahay oo aan la joogi weyne oo intaanoo maaragtay mujtamaca aan isugu nimid inta aysan kaamirada qabanayninaa ka badan oo meeshaan taagan waxa waaye badbaaday u baahan tahay walaalihii shalayna saacidaan badbaado ka rabnaa walaalihii shalay noo gurmadaan gurmad ka rabnaa gabadhii keliyaheeda maalin dhaafaa loo dhaqaa shalay xoolihii iyo kistii aad ku soo kaalmayseen oo aad ku tabarrucdeen gebagabay ka mareenoo waa eber dhaqistii ma sii socon karto dhakhtarkii wuxuu yidhi degdegaa keli loogu baahan yahay kelideedii keli waxa u bixinaysa gabar yaroo iyadu ay dhashay ama walaalkeed waa loo taagan yahay isbitaalka xaawi cabdiyaa lagu dhaqaa wuxuu yidhaahday $25,000 waaye kasiraa lacagtii ka hartay muslimiinta ummadda nebi maxamed ee shalay u soo gurmatay waxaan ka codsanaynaa shalayna annaga deriskiya u baxayo oo maaragtay yaa muslin ahee yidhi oo intaas kaalmadaa ku heleen haddana waxaan codsanaynaa annagoo deriskii ah oo aniga deriskeeda xaqeed aan ahay oo kow guriga ku dheganaay aan ahay intaanoo carruur ahay leedahay ilaahay owlaaddeeda kama dhex bixiyo wadaadkeeda waa kanaa horeyna waa fiidiyoyaal badan oo ay wiilal duubeen oo la soo dhigay maaragtay facebook waad ka aragteen miisaanuu ku shaqaystaa miisaanka 1,000 shilin dadku ay raacaan oo u fuulaan oo ku shaqaystaa isma bixin karo walaalaha ummadda Soomaaliyeed dal iyo dibad waxaan ka codsanaynaa gabadhan waa gabar tubadaas dhuunta ugu jirto dhuunteedii waa taasaa keliyahay ugu jirta ee tubo ugu jirtaa waxaan ka codsanaynaa ilaahay wax badbaadin kara gabadhan inaan badbaadino walaalaha muslimiinta inta khayrka jecel وتعاونوا على البر والتقوى qofka muslimka ah walaalka dhibaataysan markaad aragto Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu itixaamay macad adoonkaas loo qabo maahan waa dawladus ummadiisa Allah subhanahu wa ta'ala uu ku tusay midka kale uu ku itixaamayo ilaahay aydiis wuxuu ku leeyahay wa anfiqu mimma razaqnakum yani waxa aan idin siiyay bixiya yaa lagu bixinaa marka dadka masaakiinta jilicsan oo barmageetada lagu bixinayaa gabadhan aad arkaysaan waa gabar Soomaaliyeed oo in muddo kaliyaha ka xanuunsanaysay isbuuc walba kaliyaheeda waxa lagu dhaqaa sida maamada horeyba ay u sheegtay $120 walaalkan meesha fadhiya waa ninkeedii waxbana ma hayo wuxuu bariiska ilmihiisa ugu raadsan jiray ama haddaba ugu raadiyaa miisaan oo ku shilin lagu fuulo qof miisaan ku shilin lagu istaagayo yani wax ka raadiyo كيف يعني مديبه كرا اسبوعي $120 مايا ولا لها خير كجعل كونك الدنيا وغبنايا بل سكي اخر ما غبنايو ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم الله سبحانه وتعالى وحوليه اسو غرغاره ان اذن غرغاري يعني غرغارتي الهي waxa kamida walaashan Soomaaliyeed oo muslimada maanta u uunaysa caafimaad qabta kam lacag haysata maanta qofka caafimaadka qaba war ku dayo qofka
xanuunsanaya yacni taas ma ahan maanta haddii aafiyowdahay walaal Soomaaliyeed maanta isbuuci keliyaheeda lagu dhaqaaya $120 oo haddana barmageta aan awoodin oo saaka aan dabkooda la shidan aan waxbana haysanin walaalaha khayrka jecel ku soo dhiirada khayrka hadal wixii u khayr badan horeeyaa loogu hadlay odageedii hadlay ayadii hadashay waxaadna kala soo xiriiri kartaan lambarka shaashada idinkaga muuqda lambarkaaga daawadayaasha u sheeg 5 ku celi mar kale 5 lambar kale oo laga helo 5 walaalaha muxsiniinta khayrka jecel dal iyo dibadba lambaradaas waxaad kala soo xiriiri kartaan gabadha xanuunsanaysa mid ayada haysata midna waa odageeda siidow wahay labadaas lambaraa kala soo xiriireysaan biidnillaahi alkariim ha loo soo gargaaro ha loo soo gurmado